قضب كوبات وأبرز الطرق الاستعداد للامتحان في وقت قصر وقت كابن سيدي امتحان كان كو ديار سكرا طبعا عشاء سقال عشاء لمن تضبط قضبا كسينايا تضبط هداد قادته حقيقة وحان لها يا قف كاسي امتحان كمل مستوى في عنبو قاري دونا إن شاء الله مدى كوباد وحي تاهي اختيار مكان مناسب للدراسة ماش wax ku diyaarsanaysa inay noqoto meel u munaasab ah in wax lagu diyaariyo meel buuq inaysan ahayn meel kulul inaysan ahayn meel qabow inaysan ahayn meel aad wax ku diyaarsan kartaa noqoto mid labaad taxdiir al-ashyaa ad-daruriyya qabla al-badi kal-kutub wa dafatir al-mulaahadat marka inaad wax diyaarsato aad rabto soo diyaari waxyaabaha aad u baahan tahay intaadan diyaariska bilaabin كتبتي منهج سوق قاضو دفاترت ملاحظاتك او ام بي اما فيرada gaar ah ku qoran lahayna soo diyaarso qalimaantaada soo diyaarso garaafadaada cabitaankaana soo diyaarso waa mid labaad mid saddexaad waxay tahay التخلي عن الهاتف المحمول والانترنت tobanka biro imtixaanka ka dhiman moobilka dhan iska xir nicla xataa iska dimi tobankaas isqadim مدة أفرادنا وحيتها اختيار الزملاء للدراسة وحاضرتا صاحبه وناكسن أو حال ديارسته إن بدو حارقنا أرضية اسكو إيمانيس وحبي إسلا ديارين آيان سيو كفتم آيان أو عيار آيان وقت وكل مان آيان مركا أصحاب وحسلا ديارين إيسان لبقابة وحلو دياريا قاب وحيتها اللي يرادو جبتر هبل أن صاد ديارين السؤال اسكو دينينا أما اللي يرادو جبت مادة هبل وحي ملاحظات اسكلا سو سارينا لبداس او مهمسن إنا ترادان والسؤالها هبل 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 جبت سو دياري markaan isku nimaado su'aal isweydiinina xaqiiqan warkaas soo laabanaayo markii dambe markii imtixaanka la keeno su'aasha isweydiinaysan haday timaado isla markaa qalbigaaga ku soo dhacaysa qodobka shanaad al-i'timaad ala al-mulaahadat منهجك وسوق خلاصيسان بو غوريا سميسان waxaad ictimaadaad cuqsata waxyaad akhrisaa mar walba wixii aad mulaaxadaadka aad ku keentay mar walba kuwa ictimaad mid labaad markii mawaada aan qaadano waxay ka kooban yihiin fahan iyo xifd waxna waa la fahmaa fahani kaaga baahan yihiin maadooyinka qaarna xifdi kaaga baahan yihiin tarbiyada kale waa wada xifdi tarbiyada marka aad baranayso waxa la sameeyaa waxay isugu xiran tahay majaalul quraan majaalul fiqh majaal jabtar walbana hal majaal laga soo qaataa wixii majaalul quraan isku xir ka soo bilow cutubka koobaad ilaa cutubka ugu dambeeyo imtixaanka hadii hore laga keeno iyo hadii gadaal laga keeno waxa waa isku mid ku tahay hal mar wada diyaarisay majaalul hadiis ay imaanaysa وعشرك لباد جبترك كوبات 10 كلا جبترك لباد 10 كسدحات جبترك سدحات 10 كسدحات سدا هدان ودا دياري مجال الفقه ما سدا او دياري هدان اساس وخ هدا سدا او برتو وفهميسا عربي وكلا تصالح waa laba qaybood qaybna waa adab qaybna waa maharaat qaybta adabka xifdi qaybta maharaadka ma sheekooyinka isku daalin qawaacida xifdi sida inta badan imtixaanka waxa lagu keenaa tashbiih oo kale imtixaanku kama qiyam ma arkin tashbiih oo kale iyo imtixaanku kama qiyam ma arkin qaybta adabkana dhowr su'aal laga keenaa waa laba qaybood oo kala qaybsanaysa xaqiiqan manhajka oo dhan hadaad mulaaxada ku sameeyso halkii maadaba 20 baalma dhamaanayso waxa kale oo dhan waa iska war inta muhiimka ah waa 30% waa 30% mulaaxada ku sameeyso mid kale waxay tahay muraajacaad ikhtibaaraat saabiqa marka imtixaanaadkii hore inaad daraasayso waxay ka anfacaysaa inta badan waxa jira kuwa la soo celceliyaba wala soo celceliyo tikraar ay sameynayaan